What is a household budget survey? And are you aware that the government, through the Somali National Bureau of Statistics, is conducting the 2022 household budget survey? sahanka miisaaniyadda qoyska waa sahan dalka oo dhan laga qabanayo oo lagu ururinayo xog dhameystiran oo ku saabsan inta uu la egyahay kharashaadka qoyska adeegyadooda si loo cabiro heerka dhaqaalaha guud heerka saboolnimo iyo heerka sinaan la'aanta dhanka dhaqaalaha in sahanka la qabto waxaa jaangooyay qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad oo qayb ka ah istaraatiijiyada yareynta faqriga dalka sidaa darteed xogta sahanka waxay gacan ka geysan doontaa dhaqangelinta qorshaha sagaalaad ee qaranka isla markaana sahanku wuxuu qayb ka yahay dhamaystirka hanaanka deyn cafinta dalka. This survey evaluates consumption of goods and services that are bought by households such as groceries, house rent, utility bills, vehicles, recreations, computer gadgets, schooling, health services and personal items. runtii waxaa loogu talagalay sahankan 7,140 qoys oo loo dooranayo qaab cilmiyeysan lagana xushay 595 goobo sahan ayaa loogu talagalay oo ah dhammaan dalka dhan. This survey is not a humanitarian exercise and therefore not an aid distribution project. The information gathered in this survey will help in the national planning for government priorities. Data from the SIHBS will be the basis for the completion point of debt relief for Somalia, hence direct foreign investment for Somalia. Respondents are assured of their confidentiality as they will not be personally identified from the data or subsequent reports. waxa wax laga weydiin doonaa dakhliga qarashaadkooda iyo su'aalo la xiriira macluumaadka qaybaha dadweynaha ama demografiga iyo helitaanka adeegyada su'aaluhu waxa looga qiyaas qaadan doonaa dakhliga iyo awoodda wax iibsiga ee dadka macluumaadka dadweynaha ama demografiga iyo helitaanka adeegyada asaasiga ah. National Bureau of Statistics is calling upon the public, government agencies, the media, civil society, disadvantaged groups and other stakeholders to support this important process. waxaa horta ugu muhiimsan in dadweynaha iyo qoysaska ayna siiyaan waqtigooda waxaan ku dhiirigelinaynaa qoysaska uu sahanka ku soo beegmay ama loo doortay inay ka qayb qaataan sahanka in waqtigooda ugu deeqaan maadaama ay qayb muhiim ah ka yahay dejinta qorshaha horumarka dalka. For any further details, comments, complaints or compliments, call us on our toll-free hotline number 2137. You may also reach us on complaints.sisepcb@nbs.gov.so.